Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Banooda Media waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan. Banooda Media haddii aad member ama xubin ka tahay waad mahadsan tahay, haddii aadan member ka ahayn fadlan nagu soo biir. Qisada maanta waa qiso cajiib ah, waxay ka dhacay degmo ka mid ah degmooyinka Muqdisho ama Banaadir, waxayna ku saabsan tahay qiso saddex geesood ah. Nin dhalinyar ah ayaa wuxuu degnaa qol irid bannaan ah ama qol ka baxsan guriga. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa guriga ugu yimid nin ay asxaab yihiin. Salaan kadib wuxuu saaxiibkiisa ku yidhi, saaxiibo waxaan rabaa in aad qolka furaha i siisid oo aad ii banaysid, waxaan rabaa in aan la imaado qof ama gabar aan isku fiicanay si aan u wada sheekaysano. Saaxiibkiisa wuxuu ku jawaabay, maqribadii ii imaaw guriga aan jooga, waan kaaga baxaa qolka, marka aad dhammaysataan furaha meel aan isku ognahay ii dhig. Maqrabadii ninkii iyo naag wada socdaan ayaa u imaadeen, wuu soo dhoweeyey, qolka ayuu ugu baxay. Ninka qolka deganaa wuxuu aqoonsaday naagta ama gabarta ninka la socotay, laakiin iyada aqoon uma lahay ninka. Naagta ama gabarta waa xaaska nin ay asxaab yihiin oo Xalane ku jira. Sida aan ka warqabno, Xalane waxaa xarun ku xaroon jiray ama tabar ciidan lagu siin jiray ardada ka soo baxday dugsiyada sare iyo shaqaalaha dowladda. Marka ay dhammaysteen sheekada, furaha waxaa loo dhigay meesha ay isku ogaayeen, wuxuu soo qaatay furahii wuxuuna ku soo laabtay gurigiisa ama qolkiis. Maalmo kadib ayaa ninkii asxaab ahaayeen ku soo noqday, wuxuu ku yidhi, maantana waxaan u baahanay in aad qolka furaha aad i siisid oo aad ii banaysid. Wuxuu ku yidhi, saaxiib maantana qof cusub ma wadaa? Wuxuu ku jawaabay, maya, qoftii aad horay u aragtay. Markaas ayuu wuxuu ku yidhi, saaxiib ma ku siinayo furaha haddii qota hore aad rabtid in aad la imaanayso. Wuxuu ugu jawaabay, saaxiib adiga maxaa galay, qofta xaaska miyaa mise waa walaasha? Fadlan furaha i sii haddii xushmo iyo saaxiibtinimo naga dhexayso, anigaba waan ku siin lahaa haddii qol gooni ah aan deganaan lahaa. Dood yar kadib wuxuu siiyey furaha asagoo aan waxba u sheegin. Ninkii oo qolka deganaa ama asxaab ahayeen ninka Xalane ku jiray ayaa wuxuu raadiyey gabarta meesha ay ka shaqaynayso, wuxuu soo helay telefoonkeeda. Maalmo kadib wuxuu u diray telefoon, wuxuu ku yidhi, waxaan ahay saaxiibka Hibil oo aad gurigayga imaadeen 2 jeer, waxaan jeclaystay in ku soo salaamo oo aan si fiican isu barano. Waxay ugu jawaabtay, waa arrin fiican. Dhowr maalmood ayuu wacay oo si caadi ula sheekastay oo si fiican la isku bartay telefoonka. Maalmo kadib ayuu wacay, sheeko gaaban kadib wuxuu ka codsaday in ay isarkaan. Waxay ku tiri, aniga saaxiibka ayaan isku fiicanahay oo xiriir naga dhexeeya, maxaad iga rabtaa? Wuxuu ugu jawaabay, khasab ma aha in saaxiibkay ogaado isarageena, waadna kala qarin kartaa, aniga marka koowaad aan u arkay ayaan ka helay, fadlan bal mar un aan isaragno. Wadahadal kadib gabartii way ogolaatay in ay isarkaan. Waxay ku tiri, xagee isku arkeena? Wuxuu ku jawaabay, gurigayga, waad taqaana. Waxayna ku balameena gurigiisa. Wakhtiga balanta inta aan la gaarin ayuu wuxuu booqasho ugu tegay saaxiibkiisa oo Xalane ku jiro. Wuxuu u sheegay nin ay asxaab yihiin furaha gurigiisa ka qaatay si ay wada sheekaysadaan qof dumar ah. Waxaa guriga iigu yimid ninkii oo wehliso qof dumar ah. Qofta dumarka waxay noqotay xaaskaadii, maadaama iyada aan aqoon ii lahayn waxba kuma darsan. Maalmo kadib ninkii ayaa mar labaad ayuu igu soo noqday asagoo rabo furaha qolka, waan ka diiday, kadib markuu isxanaajiyey ayaan siiyey furaha. Aniga ma aqaani waxa ka dhexeeya xaaskaadii iyo ninkaas, mana weydiinin xiriirkooda wuxuu ku salaysan yahay. Waxaan ku dhaqaaqay in aan barto xaaskaadii, waxaan helay telefoon lambarka iyo meesha ay ka shaqayso. Waxaan wacay xaaskaadii dhowr jeer telefoon kula hadlay, kadib waxaan ka codsaday in aan kulano. Inkasta marka hore iga diiday. Ugu dambayn waye iga ogolaatay in aan is aragno, waxaan ku ballanay in aan ku kulano gurigayga. Wuxuu u sheegay maalinta iyo wakhtiga ay ballanay. Haddaba maalintaas fasax soo qaado, igu imaaw gurigayga iyadoo xaaskaadii ila joogto, qolka ilbaabka ma xirayo, sida aad u soo socoto soo gal. Waxaan arrintan u samaynayaa in aan kuu xaqiijiyo arrinta aan kuu sheegay. Saaxiibkiisa waxay arrinta ku noqotay mucjiso, wax lala yaabo. Ugu dambayn wuxuu ka ogolaaday in uu fasax soo qaato maalintaas iyo wakhtiga la balamiyey in ugu yimaado guriga. Maalinta la balamay maqribka kadib wuxuu tegay guriga, wuxuu si toos u galay qolka, wuxuu ugu tegay saaxiibkiisa kursi ku fadhiyo, xaaskiisa ku fadhiso sariirta. Mar alaale markay ay aragtay ninkeeda ayay isku naxday oo ilbaabka ka soo baxday.
wax talaab ah ma uusan qaadin, wuxuu u mahadnaqay saaxiibkiisa, kadib wuxuu soo aaday gurigiisa. Nasiib daro xaaskiisa ma joogin guriga, waxay si toos u aaday guriga hooyadeeda iyadoo u sheegtay hooyada in ay isoo dagaaleen ninkeeda. Ninka markuu ogaaday in ay aaday guriga hooyadeeda wuxuu ku soo laabtay xalane. Maalinta Khamiista marka la soo fasaxay oo guriga tegay, xaaskiisa weli kuma soo noqonin guriga. Wuxuu ugu tegay guriga hooyadeeda si gooni ah ayuu ula hadlay, wuxuuna ku yidhi, arrinta qof kale uma sheegin, fadlan soo bax guriga, marka aan tagno ayaan wada hadlaynaa. Wuu qanciyey, waxayna soo aadeen gurigooda. Marka ay guriga tageen iyagoo salootada fadhiyaan ayuu wuxuu xaaskiisa ku yidhi, waxaad samaysay waa khiyaano, wax laga xumaado oo laga yaqyaqsado, mana kaa filanaynin. Maxaa kugu khasbay in arrintaas samayso? Waxay ku tiri, waan qaldamay, mar kale ma dhici doonto, waxaan kaa codsanayaa in aad i cafiso. Dood dheer kadib wuxuu ku yidhi, hadda waan ku cafinayaa, laakiin haddii mar kale falkan noocaan ah ku kacdid kole waan ogaanaa, kadib tallaabo adag ayaan kaa qaadayaa. Ninkii sidaas ayuu xaaskiisa ku cafiyey oo ay ku wada noolaayeen. Muddo kadib wuxuu saaxiibkiisa oo arrinta kashifay ayuu ku casuumay gurigiisa. Xaaska markay ay aragtay ayay isku naxday, iyadoo naxsan oo sii jeedjeedsanayso ayay qadada u soo gurtay. Gunaanad, guurka waa shay qaali ah, waxaa loo baahan yahay in uu ku dhisnaado aaminad, isfahan, kalgacayl, kalsooni, ixtiraam iyo kala dambayn. Qisada maanta intaas ayay ku eg tahay.